بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا وناسن داوديال halkan waa telefishinka Dalsan Muqdisho waxaan ku soo gudbinayaa barnaamijka faaqada ciyaaraha waa xad taariikhdu waxay ku beegan tahay 20ka bisha 7aad sanadka 2025 warbixinada daqiiqadaha soo saaxiibayaal barnaamijkan ku soo qaadan doono waxaan qayb ka ah kooxda kubadda cagta Liverpool oo dhameystirtay saxiixa wariyaanka Eintracht Frankfurt ee Hugo Ekitike barnaamijka saaxiibayaal ku soo qaadan doona sidoo kale waxaa soo gudbin doona laacibka Lionel Messi oo jabiyay rikoor oo hore u dhigay Cristiano Ronaldo kadib markii Messi uu xalay dhaliyay 2 gool kulankii kooxdiisa soo ciyaartay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa soo gudbin doonaa ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Denari waxa uu sheegay halka ay kooxdiisii hore Arsenal kaga dhameysan doonto horyaalka Premier League ciyaareedka soo socda 2025 2026 sidoo kale waxaa soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta Galatasaray oo la warinayo in heshiis shakhsi ay la gaartay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City goosha u ilaaliya ee Ederson barnaamijka saaxiibka ku soo qaadan doonaa kama marna wargeysada waxyaabo ay ka soo qorayaan soo qaybka ciyaartoyda aan soo bilaabo barnaamijka faaqada ciyaaraha Dalsan TV kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxa ay dhameystirtay saxiixa wariyaanka kooxda Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike kaasi oo ahaa bartilmaameed weyn oo ay xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Liverpool waqtiyadii ugu dambeeyay kooxda Liverpool ayaa heshiis rasmi ah waxay la gaartay ciyaartoyda Frankfurt u ciyaaraha ee lagu magacaabo Hugo Ekitike sida uu xaqiijiyay wariyaha caanka ah ee lagu magacaabo Florian Plettenberg labada kooxood ayaa maanta yeeshay wada hadal cusub oo miro dhalay waxaana la isku raacay heshiis gaaraya 90 milyan taasoo ay ku jiraan gunooyin iyo waxyaabo dheeraad ah ciyaartoydani 23 sano jirka ah ee Ekitike ayaa la filayaa inuu mari doono tijaabada caafimaadka maalmaha soo socda kahor inta uusan saxiixin heshiiska muddada dheer soconaya ilaa 2031 oo uu saxiixi doono kooxda kubadda cagta Liverpool xilciyaareedkii la soo dhaafay wariyaanka reer Faransa ayaa wacdaro ka dhigay Bundesliga isagoo dhaliyay 22 gool isla markaana sameeyay 12 caawin 48 kulan oo uu saftay kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt ee ka ciyaarta gudaha wadanka Jarmalka Liverpool ayaa Hugo Ekitike waxay u aragtaa weeraryahan mustaqbalka wax ku soo kordhin kara kooxdeeda iyadoo lagu wado inuu noqdo saxiix muhiim ah xilciyaareedkan cusub Ekitike ayaa noqonaya saxiixii shanaad oo ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay sameynayso inta uu furan yahay suuqa iibsiga ciyaartoyda laacibkan ayaa hore wax ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta PSG balse amaah ay ku soo qaadatay naadiga Eintracht Frankfurt 2024 ayaa si rasmi ah ay kooxdaas u iibsatay iyadoo haatana laacibkan uu ku soo dhow yahay kooxda kubadda cagta Liverpool ayaana Hugo Ekitike waxa ay ka dulqaatay ama xiisihiisa ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Newcastle United taasi oo iyaduna aad u xiiseynaysay Newcastle ayaa waxay u diiday Alexander Isak kooxda kubadda cagta Liverpool waxay noqotay mid ugu dambeyntii iyaduna ka aftuubata ciyaartoyda Ekitike kooxda kubadda cagta Newcastle United maadaama dhankooda ay u diideen laacibka lagu magacaabo Alexander Isak Newcastle ayaana laacibkan waxay ku qiimeysay 150 milyan oo kaliya kooxdii rabtana inay miis ku soo saarto balse Liverpool ayaa 120 iyadoo diyaar la ahayd inay ku soo qaadato Alexander Isak Newcastle ayaana ugu dambeyn waxay noqotay mid talabaadkaasi ka diida naadiga Liverpool waxaana ay rabtay in Ekitike iyo Alexander Isak ay garoonka ay ku wada hayaan balse Liverpool ayaa soo gashay saxiixa wariyaanka reer Faransa ee Hugo Ekitike ugu dambeyntiina waa ay ka aftuubatay naadiga Newcastle iyadoo Liverpool wararkii ugu dambeeyay ee mustaqbalka laacibkan ay sheegayaan in 90 milyan ama 95 milyan ay kaga soo qaateen naadiga Eintracht Frankfurt maanta iyo bari wixii ka dambeeya ayaa la filayaa in laacibkan tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda kubadda cagta Liverpool isla markaana uu ku soo biiro garoonka Anfield waxaana uu noqonayaa saxiixii shanaad oo ay Liverpool ay sameyso inta uu furan yahay suuqa iibsiga ciyaartoyda dhinaca kale ciyaartoyda caanka ah Lionel Messi ayaa jabiyay rikoor oo hore u dhigay Cristiano Ronaldo kadib markii Lionel Messi uu 2 gool dhaliyay kulankii xalay naadigiisa Inter Miami ay ka adkaatay kooxda lagu magacaabo New York Red Bull lagu magacaabo ayay ka adkaadeen kooxda kubadda cagta Inter Miami kulan aad u xiiso badnaa oo xalay ka dhacay gudaha wadanka Mareykanka isla markaana qayb ka ah horyaalka wadanka Mareykanka ee MLS-ka xidig reer Argentina Lionel Messi ayaa waxa uu dhaafay xidiga ay muddada dheer ay xifaaltamaan ee Cristiano Ronaldo kadib markii uu 2 gool ka dhaliyay kulankii Inter Miami ay 5 gool iyo gool ay ku garaacday kooxda New York Red Blues lagu magacaabo xidig reer Argentina ee Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahanka dhaliyay goolasha ugu badan ee rigorooyinka aan ku jirin taariikhda kubadda cagta isagoo ka saramaray Cristiano Ronaldo rikoorkaas waxa uu kaga hormaray Ronaldo oo isagu hore u haystay 763 gool oo aan rigooro ku jirin
Ronaldo waxa uu dheeryahay Lionel Messi 167 kulan. Messi ayaa xilciyaareedkan 2025 si cajiib ah ku bilowday horyaalka Mareykanka ee MLS-ka isagoo u dhaliyay 18 gool, 7 kalena caabiye ka noqday 18 kulan oo uu u saftay naadiga Inter Miami. horyaalkaasi rikoorkan cusub ayaana mar kale adkeynaya doodda ah in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu dhameystiran abid ee soo mara kubadda cagta. Messi iyo Ronaldo ayaa ciwaan ka dhigay mid ka mid ah xifaaltankii isboortiga ee weynaa muddo ku dhow 10 sano iyo sidoo kale bar. labadan ciyaaryahan ayaa ku guuleystay isku dar 13 gool jaysada caanka 13 jeer jaysada caanka ee Ballon d'Or. 8 ka mid ah waxaa ku guuleystay Lionel Messi halka Cristiano Ronaldo uu 5 jeer ku guuleystay jaysada caanka ah ee Ballon d'Or. inkastoo ay ku jiraan mugdiga xifaaltankooda, labada xidig ee weerarka ciyaara ayaa sii waday inay cadeeyaan awoodooda kooxaha. Lionel Messi oo 36 jir ah ayaa dhaliyay 22 gool, 7 caabin, 28 kulan oo u saftay naadiga Inter Miami xil ciyaareedkan. Ronaldo oo isaguna 40 jir ayaa dhaliyay 35 gool, 4 ayuu caabiye ka noqday, 41 kulan oo u saftay kooxdiisa Al Nassr xil ciyaareedkii tagay ee 2024-2025. loolanka taariikhiga ah ee labadan haliyay ayaa waxa uu soo maray kubadda cagta xilli labadooduba gacanta ay ku hayeen ciyaaraha 20kii sano ee lasoo dhaafay. inkastoo Messi iyo Ronaldo ay ahaayeen kuwii ugu sareeyay kubadda cagta, haddana weligood isku mar ma wada ciyaareen oo hal koox ma aysan wada metelin. labadan haliyay ayaa iska hor yimid 36 jeer tartamadoo dhan, iyagoo haliyayga reer Argentina ee Lionel Messi uu adkaaday 16 jeer ka mid ah kulamadaasi, 11 jeerna isaga laga adkaaday, halka 9 kulan ee soo haran barbaro ay ku heshiiyeen kulamadii ay sarkeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. dooda Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa weli ah mid aad u kacsan kubadda cagta, taasoo gaartay meeshii ugu sareysay intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2010 ayayna aad u xifaaltameen labadan laacib, markaasoo ay kala medelayeen kooxaha ku xifaaltama horyaalka wadanka Spain ee liigaha ee Barcelona iyo sidoo kale Real Madrid. Lionel Messi ayaa sidoo kale xalay 2 gool ay ku dhaliyay naadiga lagu magacaabo kooxda reer Mareykan. 2 gool uu ka dhaliyay ee lagu magacaabo New York Red Blues waxa ay sidoo kale shaaca ka qaatay in uu dhalinayo kulankii shanaad oo xiriir ah ee diro 2 gool ah kulankiiba. horay Lionel Messi ayaa waxa uu dhaliyay Columbus iyo kooxaha kale min 2 gool, waxaana xalay uu noqday in 6 kulan ee Mareykanka ay ka ciyaartay kooxdiisa lagu magacaabo Inter Miami inuu wadar ahaan uu siiyay 10 gool kaliya. kulankii xalay kii gooreeyay oo Inter Miami laga adkaaday ayuu Messi shabaq soo daawan, balse 5 kulan ee ka dambeysaba waxa isagu uu noqday mid 2 gool shabaq soo daawanayay. sidoo kale kulanka lixaad ee soo aadan haddii Lionel Messi uu dhaliyo 2 gool, waxa uu dib u xasuusin doonaa jamaahiirta rikoor uu horay ugu dhigay kooxda kubadda cagta Barcelona 2012 xilliga oo 6 kulan oo xiriir ah kooxda kubadda cagta Barcelona min 2 jeer shabaq ugu soo daawanayay Lionel Messi, isagoo mar kalena rikoorkaasi dib u xasuusin doona jamaahiirta isagu taageerta. Lionel Messi ayaa weli waxa waqti cajiib ah ku qaadanaya gudaha wadanka Mareykanka ee MLS-ka, iyadoo waqtigan kooxdiisu ay ku jirto booska shanaad ee kala sareynta horyaalka wadanka Mareykanka. kaliya 21 kulan ayay ciyaartay kooxdiisu maadaama ay ku maqneed tartankii koobka kooxaha adduunka ee lagu soo gabagabeeyay gudaha Mareykanka, halka kooxda hogaanka haysana iyadoo ay ciyaartay 24 kulan. taa ayaa ka dhigan in 3 kulan oo baaqi ah ay gacanta ku haysato kooxda uu ciyaaro Lionel Messi ee Inter Miami. dhanka kale saaxiibayaal, ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal ahna haliyay kooxdaasi Thierry Henry waxa uu ka hadlay halka ay Arsenal kaga dhameysan karto horyaalka Premier League ciyaareed soo aadan 2025-2026. Thierry Henry ayaa ku taageeray Arsenal inay ku guuleysato horyaalka Premier League ciyaareedka 2025-2026, waxaana uu aaminsan yahay in Mikel Arteta uu qabtay shaqo fiican oo ay ugu dambeyntii ugu gudbi karaan inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ciyaareedka soo aadan. Gunners ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad ee Premier League 3 xilciyaareed ee la soo dhaafay, waxaana ay sidoo kale ku guuldareysteen inay ku guuleystaan koob weyn tan iyo 2022 markaas oo ay ku guuleysteen FA Cup-ka, waana xilligii ugu horeeyay ee tababaray Mikel Arteta. Thierry Henry oo kula guuleystay Arsenal horyaalkii Unbeaten-ka ee 2003-2004 waxa uu aaminsan yahay inay Arsenal xilciyaareedkan ay ka gudbi doonto ku guuleysiga horyaalka Premier League ee muddada dheer ay leedahay. Thierry Henry ayaana yiri Mikel Arteta waxa uu qabanayaa shaqo aad u fiican, waxaana uu sanadihii ugu dambeeyay dhisayaa koox dagaalanta
bal eeg sanadkiisii koowaad waxaa kooxda joogay ciyaartooy kor usii dhaafayay daada 30 sano. hadda waxaa kooxda jooga ciyaartooy aad u yar kuwaasoo leh hibad fiican. taasi waxay ku timid dadaal iyo sabar iyo in Arteta uu qabtay shaqo mudan in la amaano. waa run kooxdu maysan gaarin final weyn ee tan iyo 2020 oo ay ku guuleysatay FA Cup-ka, balse waxay noqotay koox 3 jeer oo xiriir ah u dagaalantay horyaalka Premier League inkastoo waqtiyo kala duwan ay la kulmeen dhaawacyo ay hadalkiisii raaciyeen. haliyay kooxda Arsenal Thierry Henry waxaa cusub mudan Canaries ay ku dhameysatay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League sanadadii 1999 2000 iyo 2001. kii xigana waxay ku guuleysatay horyaalka Premier League. Thierry Henry ayaana codsanaya in haddii Arsenal sidaas hore ugu dhacday maxaa u diidaya inay ku guuleysato horyaalka Premier League xiliyaareed soo aadan 2025 2026 maadaama saddexdii xiliyaareed ee la soo dhaafay ee ku dhameysatay booska labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League. waxaana uu qabaa in mar kale taariikhdaasi ay isixi doonto isla markaana Arsenal ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League xiliyaareedka soo aadan 2025 2026. ugu dambeyntii saaxiibayaal ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Manchester City Bryan Mbeumo waxa uu maanta ku sugan yahay xerada tababarka ee Carrington, waxaana laacibkaasi la warinayaa in halkaasi tijaabada caafimaadka uu ku mari doono isla markaana saxaafadda lagu soo bandhigi doono. shir jaraa'id ayuuna qaban doonaa oo kaga warbixin doono sida uu ugu faraxsan yahay ku biiritaanka kooxda kubadda cagta Manchester. sidoo kale heshiiska ayaa si rasmi ah looga saxiixi doonaa laacibka reer Cameroon ee loo magacaabo Bryan Mbeumo, kaasi oo kooxda kubadda cagta Manchester kaga soo biiray dhinaca iyo naadiga Brentford isla markaana waqti dheer ay xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Manchester. laacibkan ayaa tababarka bari la qaadan doona ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Manchester, kadibna waxa uu ka mid noqon doonaa ciyaartooyda u safraya gudaha Mareykanka, halkaasi oo ay kooxda kubadda cagta Manchester ay ka bilaabi doonto kulamada isku diyaarinayso xiliyaareedka soo aadan 2025 2026. gudahaan dabadayaal inta ay kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqidada ciyaaraha Dalsan TV. barnaamijka mid lamida saaxiibayaal inta kulmi doona nabadgelyo.